بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبك شرفت لي ريل جيبوتي ولا لها يغا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحان ربنا أنكم مغا إسباحيسي ربي إسان كو حدلينا إنان إدين سو قد بنو فرين مهم ميد دك دك ميد قراني ملي فرين كو سابسن مسير كحانتيدا أمدا masiirka dalka iyo masiirka jiilka bari waa qayladhaan qaran waa baaq toos ah oo BSN idilan wadaagayso si aan u badbaadino wixii naga dhaxeeyay ee ahaa dalkeena dadkeena iyo mustaqbalkeena waxa dhacay wax aan rumaysan karin sanduuqii qaran ee maalgashiga ee la yidhi waxaa loo sameeyey inuu noqdo tiirka dhaqaalaha iyo rajada ubadka berito ayaa la kala diray waxaa la socotaan in madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geele uu go'aansaday in si rasmi ah u kala diro sanduuqii qaran ee maalgashiga Djibouti ee la asaasay 5 sano ka hor isagoo soo saaray xeer madaxweyne oo tulkiisu yahay nambarka 25aad 8 kana soo baxay guriga madaxtooyada soona baxay bishii abriil 27keygii sanadkan 2025 inkasta oo eriga kala dirid aan si toos ah loogu xusin xeerka haddana waxa si cad loo fahmayaa in la kala diray sanduuqa si ka hordhaca taas oo ka hor imanaysa kala sooca awoodaha iyo xeer hoosaadka sanduuqa laftiisa arrintani waa marka ugu horeysa waa ku tumasho dastuur sababtoo ah sida uu sharcigu sheegayo markii la dhisay sanduuqa lagu dhisay sharcigii 75aad ee ka soo baxay golaha baarlamaanka bishii Maars 29keygii 2020 go'aanka lagu kala dirayo wuxuu sheegayaa sharcigaasi go'aanka lagu kala dirayo sanduuqu wuxuu yahay inuu noqdo go'aan sharciyeed oo laga ansixiyo golaha shacabka balse waxa lagu meelmariyay oo kaliya xeer madaxweyne arrintaasina waa arrin muujinaysa ku tumasho sharci qaran waa marka labaad waxa cadeynaya oo kale inay arrintani ay tahay ku tumasho sharci xeer hoosaadka sanduuqa qodobkiisa 24aad ayaa si cad u qeexaya in haddii si hordhaca loo kala dirayo sanduuqa amaba la kala dirayo golaha guud ee sanduuqu inuu isagu leeyahay go'aanka kala dirista uuna cadeynayo habka loo kala dirayo hantida sanduuqa gole la shiriyey ma hayno mana jiro waa arrin muujinaysa ku tumasho sharcigii uu ku dhisnaa sanduuqan intaa waxa dheer xeerka lagu kala dirayo sanduuqa wuxuu ka kooban yahay 4 qodob oo gaagaaban oo aan sheegayn sababaha ama duruufaha ka dambeeya go'aankan kala dirista waxaan sidoo kale ognahay in dhawaan laga bilaabo 6 ilaa 8 abriil 2025 sanduuqa dhaqaalaha ee qaran ee Djibouti uu ku qabtay shirkii labaad ee Djibouti Forum oo lagu qabtay hotelka Ayla ee magaalada Djibouti sida uu qoray wargeyska dawladda ee La Nation agaasimaha guud ee sanduuqa waxa uu ku tilmaamay sanduuqu inuu yahay hindise xeeladaysan oo la mid ah nidaamyada Aasiya iyo Bariga Dhexe isagoo xusay
inuu sanduuqu dulba leeyahay hantiyo muhiim ah sida Djibouti Telecom iyo inuu maalgelinayo mashaariic badan sida bedelaadda tamarta, xarumaha xogta iyo kaabayaasha ardayda. wuxuuna tilmaamay in hadafku uu yahay in laga dhigo sanduuqa mid gaadha qiimo dhan oo ah $2 milyan tan iyo 2030. waxaa mucjiso ah in wax ka yar 3 toddobaad kadib shirkaas iyo ereyada agaasimaha guud ka soo weeray in lagu dhaqaaqo kala dirista sanduuqii qaran ee dalka. halkay wax ka sii yihiin isma dhaafkan halkay buu ka yimid? sanduuqu wuxuu ahaa shirkad xadidan oo leh hanti dhan 13 milyan iyo 560 milyan oo faranka Djibuutiya. sida ku cad sharciga waxaa loo wareejiyay hanti qaran oo istaraatiiji ah oo ka koobnayd 100% shirkadda Djibouti Telecom, 100% shirkadda maamulka dekedaha Dooraale, 40% shirkadda Great Horn Investment Holding iyo hanti lacag oo dhan 45 milyan oo faranka Djibuutiya. sidoo kale shirkadda korontada Djibouti oo loo bedelay shirkad xadidan ayaa la rabay in si buuxda lagu wareejiyo sanduuqa. go'aankan lagu kala diraayo sanduuqa wuxuu dhab ahaan muujinayaa guuldaro mugle oo ku timid hindisihii madaxweynuhu ku faanay ee ahaa inuu hirgeliyo maalgashi qaran iyo kayd dhaqaale oo jiilal badan u faa'iideeya. waxaan leenahay mudane madaxweyne, mudane Ismaaciil Cumar Geelle, tallaabo kaste oo aad qaadid oo aad ka dhigtid tallaabo qaran waxay ku dambaysaa guuldaro qaran. guuldaro kaste oo dalka soo wajahdana adigaa ka aabba'a. run ahaantii sidaa degdega ah ee sabab la'aanta ah ee sanduuqa dhaqaale ee qaran loo soo afjaray waxay caddaynaysaa wax qof kaste oo in yar feejigan uu garanayay, taas oo ah in sanduuqu bilowgiiba lagu dhisay sal aan adkayn, hantidaasna la waayi doono. xitaa sida loo wajahayo kala dirista hadda waxay u muuqataa mid khaldan. waxaa loo xil saaray kormeeraha guud ee dowladda, shaqadiisuna ay ahayd inuu dabagal ku sameeyo xisaabaadka sanduuqa. sida ku cad sharciga nambarkiisu uu yahay 52 ee uu ansixiyay golaha baarlamaanka 3 May 2004, qodobkiisa labaad wuxuu sheegayaa uu caddaynayaa shaqada hay'adda kormeerka dowladda taasoo si toos ah u hoos tagta madaxweynaha. wuxuuna sharcigu leeyahay shaqada uu leeyahay kormeeraha guud waxay ku kooban tahay xaqiijin, daraasaad, qiimeyn iyo kormeer ee ma aha maamul iyo kala diris. waxaanu leenahay kormeeraha guud ee dowladda shaqo uuna lahayn baa madaxa loo saaray. BSN waxay si xoog leh u cambaaraynaysaa mugdiga iyo daahfurnaan la'aanta ka dhex jirta sanduuqa tan iyo maalintii la dhisay. waxaan ka dalbanaynaa madaxweynaha inuu shacabka u caddeeyo waxa lagu sameeyey hantidii dadweynaha ee lagu wareejiyey sanduuqan. sidoo kale waxaan dalbanaynaa in si degdeg ah loo qaado tallaabooyin lagu xaqiijinayo daahfurnaan buuxda ereyga kala diris Faransiisna lagu dhaho liquidation. reer Djibouti arrintan musiibada ah ee meesha ka saartay wax kasta oo lagu sheegi karo kalsooni ku aadan xukuumaddan Ismaaciil Cumar Geelle. inkastoo aanu aaminsanahay run ahaantii inaanan loo qabin wax kalsooni ah xukuumadda Ismaaciil Cumar Geelle, waxay arrintan inoo muujinaysaa baahida degdega ah ee loo qabo badbaado qaran. haynu badbaadinno dalkeenna, haynu badbaadinno dadkeenna, haynu badbaadinno hantidayna, haynu badbaadinno mustaqbalkeenna. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.